Ra'iisul Wasaaraha dalka ayaa waxa uu fariin ku saabsan weeraradii xalay ay geysteen kooxaha jabhadda TPLF u diray shacabweynaha. warkan hanunta lowna ከሃዲ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ወቅተዋታል። ኢትዮጵያ ያጎረሰ እጇ shacabka dalkayga ee qaaliga ah maanta muwaadiniin dalkooda inkiray ayaa Itoobiya soo weeraray. waxay qaniineen gacantooda qoodisay iyo naaskii ay jaqeen. ciidamada gaashaandhigga ee 20kii sano ee lasoo dhaafay nabadgelyada shacabkooda iyo dalkooda godka dacwada ugu xirooday, dhiigooda u soo daadiyey, naftooda u soo huray, una soo dhaawacmay ayaa xalay marka laga soo bilaabo Maqale ilaa meelo kale oo kala duwan ayay xoogagaasi dalkooda inkiray iyo kuwa iyagu abaabuleen geystay weeraro aad looga yaxyaxo oo ah kuwii ugu foosha xumaa ee dalka ka dhaca oo xataa aan loo geysan ciidamada Itoobiya ee wadamada shisheeye ku sugan. weeraradaas oo keensaday in dad badan lagu dilo, kuwa badanna lagu dhaawaco oo hantina ku burburtay. እንዲቆስሉ ንብረቶች እንዲወድሙ ተደርገዋል። በተለያየ የሀገራችን ክፍሎች ባሰለጠናቸው ባስታጠቃቸው xooggan xumaan wadayaasha ahi bilihii badnaa ee lasoo dhaafay waxay u geysanayeen falal foolxun, gaar ahaan qaybo kala duwan oo dalkeena ka tirsan ayay xoogagani ay iyagu tababareen, hubeeyeen oo ay howlgeliyeen dad badan oo rayid ah u geystay waxyeelooyin kala duwan. ujeeddada weeraradaasi ka dambeysay waxay ahayd si xoogaga ciidamada gaashaandhigga loo kala baahiyo, kadibna ay waqti ula beegsadaan si ay weerar ugu qaadaan kuwa meelahooga ku sugan. weerarada ay xalay noogu geysteen Maqale iyo meelo kale oo kala duwan waxaa dheer iyaga oo dhinaca Daansha ee xuduudda deegaanada Tigray iyo Amxaarada ka soo weeraray, waxaana socota iska caabinta loogu jiro weerarkaasi. ከፈጸሙብን ጥቃት በተጨማሪ በዳንሻ በኩል በአማራ ክልል ላይ ጥቃት ፈጽመዋል። በአማራ ክልል የነበረው ኃይል ይህንን ጥቃት የመከተ ሲሆን xoogga ciidamada gaashaandhigga ee dalka ee ku sugan deegaanka Tigray oo shacabka reer Tigray u arka shacabkooda oo ay inkasta oo shacabkaasi dhufays u noqday xoogga xumaan wadayaasha ah, haddana waxay ciidamadaasi ay wadeen dulqaad aad u badan oo ay shacabkooda reer Tigray ay waxyeelada soo gaadha ka ilaalinayeen. haddaba ciidankaasi dadaalka ballaadhan iyo dulqaadka muujiyey ayaa si ayna filaynin xoogga xumaan wadayaasha ahi ay weeraro ku qaadeen, maadaama ay dhici karto in dhammaan qaybaha iyo magaalooyinka kale ee dalka ay xoogga xumaan wadayaasha u sii diyaariyeen ay howlgallo la mid ah ku qaadaan shacabka rayidka. መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሚሊሻ ከፖሊስ ሰራዊት እንዲሁም በአካባቢያቸው waxaa dhammaan dadweynaha dalka aan ugu baaqayaa in si foojignaan leh ay wada shaqayn ula yeeshaan maleeshiyaadka ciidanka xoogga booliska iyo ciidamada gaashaandhigga ee goobahooda ka jira, oo ay sidaasna ku ilaaliyaan meelahooda, dariskooda, xaafadahooda, magaalooyinkooda iyo guud ahaan nawaaxigooda ay ilaaliyaan. sidoo kale waxaan ciidamada gaashaandhigga ku goobaabinayaa in iyaga oo raacaya awaamiirta ka soo baxaya xarunta taliska dhexe inay difaacaan astaantooda, dalkooda iyo shacabkooda. wax kasta oo arrintan u horayaan wuxuu noqonayaa mid galaya bogga taariikhda ee dalka. በመተባበር ኢትዮጵያን ወጋለው ብሎ ሲያውጅ ሲናገር የነበረው ኃይል ይህን ለማመን የሚያስቸግር ንግግር በተግባር በዚህ ምሽት አረጋግጧል። ይህ ጉዳይ ለኢትዮጵያውያን እጅግ አሳዛኝ አሳፋሪም ቢሆን maadaama uu gaadhay xilligii uu xoogga xumaanta baabi'i lahaa, iyadoo arrimaha jira wadahadal iyo hab nabadeed loogu xallin karo, ayuu dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay uu bilaabay in si bilaa yaxyaxa uu warbaahinta uga sii daayo inuu Itoobiya warar uu hadallo uu ku sheegayo inuu Itoobiya weerarayo, isaga oo la shaqaynaya xoog kasta oo shisheeyaha ah
wuxuuna xalay ka dhabeeyey hadalka uu sheegay shacabka reer Tigray waxaan ku boorinayaa in iyaga oo weerarka ciidanka lagu qaaday ka soo qaadaya mid iyaga lagu qaaday ay ciidamada gaashaandhigga la saftaan oo ay cadowga ka difaacaan sidoo kale shacabka reer Etoobiyana waxaan u sheegayaa in xilli kastaba wixii xog ah ee jirta ay ka heli doonaan qaybaha ay qusayso ትሻገራለች ጠላቷን ታሸንፋለች ይህ አሳፋይ ድርጊት በማይደገም ሁኔታ የሚቀለበስበትን መንገድ Ethiopia sidii hadda ka hor ay ahaan jirtay ayay sii ahaan doontaa iyada oo guul kaga gudbaysa xujada ay la kulantay oo Ethiopia si sharaf leh midnimada iyo iskaashiga caruurteeda ay waligeed ku sii jiri doonto በማይደገም ሁኔታ የሚቀለበስበትን መንገድ መላው የሀገራችን ህዝቦችና የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በመተባበር የሚፈጽሙት ይሆናል weli waxaad daawanaysaa wararkii telefishinka qaranka idinka imaanayay golaha wasiirada federaalka Ethiopia ayaa yeeshay kalfadhi degdeg ah ka soo saaray wareegto xaalad degdeg ah loogu soo rogayo deegaanka Tigray kadib markii ay geysteen kooxaha TPLF weerarka ciidanka xariyaha ETV Xamdi Maxamuud ayaa soo koobaya warbixin la xiriirta golaha wasiirada ee dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia ayaa bayaanka xaaladda degdega ah ku soo rogay deegaanka Tigray golaha wasiirada dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia ayaa maanta oo taariikhdu tahay 25 bisha Diseembar ee sanadkan 2013 oo yeeshay shirka degdega ah ee gaarka ah ee 12aad isagoo aqoonsan inay mas'uuliyad dastuuri ka saaran tahay inuu difaaco fal kasta oo qasiya qalalaase ka abuuraya dalka isla markaana ay qasab tahay in la ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta iyo xasiloonida dalka si loo xaqiijiyo sidoo kalena la joojiyo arrimaha ka jira deegaanka Tigray ee khatarta gelinaya dastuurka iyo nidaamka dastuuriga ah ee dalka gaar ahaan nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka meel ka dhacana ku ah sharafta qarannimo ee dalka oo dawladda federaalka ka hor istaagaya inay deegaankaasi ka fuliso awoodda iyo mas'uuliyadda uu dastuurku siiyay iyadoo ay weliba jirto in lagu xadgudbayo xataa go'aamada ka soo baxaya golaha federationka oo la wada falal badan oo sharci darro ah oo dalka ka dhigi kara goob dagaal haddaba iyadoo la ogaaday in la gaadhay xaaladan oo aan arrimahani lagaga hortagi karin laguna xakameyn karin nidaamka ilaalinta sharciga ee caadiga ah waxaana lagama maarmaan noqotay in iyadoo laga duulayo sida uu dastuurku dalku xeerinayo in la soo rogo bayaanka xaaladda degdega ah oo la xakameeyo khatarta ku soo wajaha nabadgelyada iyo jiritaanka dalka iyadoo la cuskanayo qodobka 93aad qodobkiisa koowaad xarafkiisa ba ayaa bayaankan xaaladda degdega ah lagu dhawaaqay bayaankani xaaladda degdega ah oo la dhaqan gelin doono muddo 6 bilood ah waxa la aasaasay koox hawlgaleed oo gaar ah oo hogaaminaya taliyaha sare ee ciidamada difaaca dalka oo ay xubno ka yihiin dad kale oo ka socda qaybaha kala duwan ee arrintani khusayso kooxdaasi hawlgalka ah oo hoos tagi doonta ra'iisul wasaaraha waxaana loogu yeedhi doonaa kooxda hawlgalka bayaanka xaaladda degdega ah bayaankani oo ka dhaqan gali doona guud ahaanba deegaanka Tigray ayaa tilmaan la soo saari doona waxa lagu go'aamin doonaa kolba goobaha dhaqangelintiisa laga reebi doono ama lagu soo dari doono kolba sida loogu baahdo waxaana la sheegay in xilli kasta shacabka la siin doono xog faahfaahsan oo bayaankani xaaladda degdega ah ee deegaanka Tigray lagu soo rogay ku saabsan madaxweynaha dawladda deegaanka Amxaarada mudane Tamaskan Niraade Turune ayaa waxa uu cadeeyay in xooga gaarka ee deegaanka Amxaarada uu si dhameystiran u burburiyay isku dayga dagaal ee hubaysnayaasha TPLF ku soo qaadeen goobaha la yiraahdo Sooraqa iyo Qira madaxweynaha oo soo saaray warbixin ku saabsan tallaabada ay dawladdu wado ayaa waxa uu sheegay in xalay xooga gaarka iyo maleeshiyadka Tigraagu ay weerar isku dubaridan ku soo qaadeen qaybta waqooyi ee fadhiisinta ciidanka qaranka iyo meelo kala duwan oo ay ka jirto adeegyada aasaasiga mudane Tamaskan Turune madaxweynaha dawladda deegaanka Amxaarada ayaa waxa intaas ku daray in xooga gaarka ee deegaanka Amxaarada ay si buuxda ah u fashiliyeen isku dayga dagaal ee TPLF ku soo qaaday nawaaxiga Saraqa iyo Qura ayraade madaxweynaha Amxaaradu waxa uu shacab weynaha ugu baaqay inta kalena madaxweynaha deegaanka Oromiya mudane Shamalas Abdisa ayaa waxa uu sheegay in ciidamada gaashaandhigga had iyo habeen baba dadaal ugu jiraan ilaalinta nabadgelyada iyo sharafta qarannimo ee dalka oo weerar lagu qaaday u dhigan tahay qalad xad dhaaf ah oo loo geystay madaxweynaha dawladda deegaanka Oromiya waxa uu shaaciyay
in aan idhaahdee xooga shakhsiyaadka iyo xooga iyo shakhsi iyo xisbi ay ka madax bannaan yihiin ciidanku islamarkaana maalin iyo habeen dadaal ay ugu jiraan ilaalinta xuduudaha dalka islamarkaana 20kii sane lasoo dhaafay kumanayaal xubnaha ka tirsan ciidanka ay naftooda qaaliga u horeen ilaalinta nabadgelyada dalka balse weerarka ka yimid kooxda TPLF uu yahay mid bartilmaameedsanaya sidii loo caqabadayn lahaa nabadgelyada ee dalka. madaxweynaha koonfurta shucuubta Ethiopia ayaa sidoo kale waxa uu cambaareeyay weerarkii ay kooxda TPLF ku qaaday xalay toolay saldhigyada ciidan ee dalka ciidamada qaranku ay ku leeyihiin magaalada Maqale. wariyaha ETV Maxamed Maxamuud ayaa soo jeedinaya warkan. wasimaha madaxweynaha deegaankaasi koonfurta mudane Risto Yirdaw ayaa warbixin soo saaray waxa uu kaga hadlay in uu yahay xisbiga TPLF xisbi doonaya in uu mar walba burburiyo dalka nabadgelyadiisa waxaana ugu baaqay dhammaan shacabka deegaanku in ay ka taxadaraan oo isla markaasina iska kaashadaan si amniga iyo nabadgelyada loo ilaalin lahaa waxaana uu sheegay in uu xisbiga TPLF uu isla markaasina marar kala duwan isku dayay inuu dhibaatooyin arqaladooyin kala duwan uu ku sameeyo shacabka iyo dalka dhexdiisa arrintaasina ay sababtay oo isla markaasina inuu dhibaatooyin kala duwan si qarsooni ah ay samaysto geysto balse waxa uu cadeystay in uu doonayay inuu dalka burburiyo oo aanu ku faraxsanayn isbedelka weyn ee dalka ka hana qaaday arrintaasina waxa cadeynaysa weerarka uu ku qaaday saldhigga militariga ee gaashaandhigga ee waaxda waqooyi ee dalkani Ethiopia ku taala arrintaasi oo uu sheegay inuu si weyn uga xun yahay oo cambaareynayana shacabkana ugu baaqay in ay shacabkuna iska kaashadaan si amniga iyo nabadgelyada loo sii xoojin lahaa oo deegaankooda iyo dalkoodaba ay ilaalin lahaayeen waxaana uu ku baaqay in loo baahan yahay dhammaan shacabweynaha dalku inay iska kaashadaan amniga iyo nabadgelyada dalka iyaga oo mideynaya midnimada dalka Ethiopia iyo waliba jiritaanka Ethiopia si looga shaqeyn lahaa ay iska kaashadaan sidii wixii cid kasta isku dayaysa nabadgelyo darro in dalka ka abuurto ay uga hortagi lahaayeen. Wagaag geesta kalena wararka naga soo gaaraya deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar uu isna dhankiisa cambaareeyay weerarkii ay geysteen kooxaha TPLF oo u geystay weerarka ciidamada difaaca qaranka. wariyaha ETV Maxamed Maxamuud ayaa warbixintan soo jeedinaya. ህወሓት ይህ ነው የማይባል ግድያዎችን እና ጭፍጨፋዎችን ሲፈጽም ነው የቆየው በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ህብረተሰቦች ውስጥ madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed ayaa warbixin uu ka soo saaray weerarka xisbiga TPLF uu ku qaaday saldhigga militariga ah ee waqooyiga Ethiopia ayaa wuxuu ku sheegay inuu xisbiga TPLF uu dadka ugu badan ee tacadiyada kala duwan uu geystay marka Ethiopia oo dhan loo eego inuu deegaanka Soomaalidu ka mid yahay waxaanu madaxweynuhu sheegay inuu tacadiyadaasi uu geystay deegaanka Soomaalida ay ka mid yihiin dilka loo geystay waxgaradka aqoon-yahaminta iyo culimada diinta iyo odayaal dhaqameedkii deegaanka Soomaalida intoodii badanayd dil uu geystay xisbiga TPLF dhibaato weyn iyo qasaarooyin kala duwanna uu ka geystay deegaankaasi Soomaalida waxaa sidoo kale madaxweyne Mustafa uu sheegay in gaar ahaan xilliyadii isbedelku uu ka dhacay dalka inuu isku dayay siyaabo kala duwan inuu dalka dhexdiisa iyo deegaankaba urashado iyo qalalaaso uga dhex abuuro marar kala duwanna uu isku dayay inuu afgambi ka bilaabo deegaanka Soomaalida dhexdiisa iyadoo oo isbedelka ka hana qaaday uu kaga soo horjeedo arrintaasina ay ahayd mid uu isku dayay inuu mar walba uu dalka ku burburiyo isbedelka ka yimid dalka oo dhanna uu kaga soo arrintaasina waa arrin aan si weyn u dhaleeceynayna xisbiga TPLF markastaba uu isku dayay inuu dalka arqaladeeyo amniga iyo nabadgelyada dalkana uu halis galiyo siyaabo kala duwanna uga qayb qaato hawlaha dhibaatooyinka kala duwan ee dalka ka dhacaya siyaabo kala duwan oo qarsoonna uu u fulinayay falal kala duwan oo dalka ku burburinayo ku doonayay inuu dalka dhibaatooyin qalaaso ka abuuro madaxweyne Mustafa waxa uu fariintiisaas kaga sheegay in uu yahay xisbiga TPLF xisbi dhibaatooyin iyo hagardaamooyin kala duwan ka geystay dalka gaar ahaanna deegaanka Soomaalida dhibaato kala duwan ka geystay madaxweyne Mustafa waxa ugu dambeyntii ugu baaqay dhammaan shacabweynaha dalka iyo waliba shacabka deegaanka Soomaalidu ay iska kaashadaan sidii amniga iyo nabadgelyada dalkooda ay u ilaalin lahaayeen si wada jirana loola dagaalamo xisbiga TPLF dhibaatooyinka iyo arqaladaha uu doonayo in dalka ka fuliyo dawladuna tallaabo sharciga waafaqsan